Tick tock, tick tock. anagu aan haysano xaaladan isla hadda waqtigani waxaa jira hal shay oo aanan awood u lahayn inaan dib u soo celinno hadday marna dhaafaan. nolosheena markaa fiirisid waxaa ku jiro hal shay oo muhiim ah. haddii aan isticmaalno iyo haddaan isticmaalinba wuu tagayaa. hadduu tagana dib dambe looma soo. anigu ma ka hadlayo lacag, ma ka hadlayo shay kale, baabuur, guri kama hadlayo. kaliya waxaa ka hadlayaa waqtigu waa muhiim. shay kala duwan ayuu muhiim u yahay. haddii sidee tahay looga faa'iideysto waqtiga wuxuu ku gaarsiinayaa guul, barwaaqo iyo horumar aan la qiyaasi karin. waqtigaas waa inaad ka faa'iideysataa si aad u gaartid hadafka iyo horumarka iyo riyooyinka aad leedahay inaad gaartid mustaqbalka dhow ay kan fogba. dhanka kale haddii waqtiga aan laga faa'iideysanin wuxuu keeni karaa in meeshaadi aad taagnaatid intii cimrigaada ka dhiman. waayo adigaa jecel inaad meeshaas taagnaatid. haddii aad doonayso isbeddel aad sameyso waa inaad waqtigaada ka faa'iideysataa sida ugu wanaagsan. waqtigu wax walba markaad soo kacdeed wuu ku xisaabsan yahay. ma xisaabaysa inta daqiiqo ee micnodara kaaga baxda. hadday ku dhaaftana kuuma soo laabanayso. waxaa luminaysaa waqtiyo, daqiiqado, sekemo aan weligooda kuu soo laaban doonin. taas micnaheedu waxay tahay maana ka faa'iideysanin. haddii aad ka faa'iideysan lahayd waxay kuu noqon lahaayeen wax wanaag. waqtiga wuxuu la mid yahay neef aad neefsanayso taasoo marna aan kuu soo laabanaynin. waqtigana waa sidaas oo kale. halkii daqiiqa ku dhaafaa kuuma soo laaban haddoo micno ciyaar kugu dhaafay. daawad adig baan kula hadlayaa. ka faa'iideysa waqtigaada. waa hal fursadoo ku soo martay. waxaana waajib ah oo muhiim ah inaad fursadaasi ka faa'iideysid. waa gift. It's a one opportunity. waa hal fursad. waa gift. waa hadiyad. waa waqti dhow lagula xisaabtami doono markaad ilaahay subxaanahu watacaala hortiisa tagtid. miyaysan waqtigaas inaad ka faa'iideysid? miyaysan waqtigaas inaad meel fiican gelisid? miyaysan ahayn oo miyaysan ahayn? way tahay inaad ka faa'iideysatid. haddiiba ilaahay subxaanahu watacaala uu kuula xisaabtamaayo waqtigii uu ku siiyey halkii aad ku bixisay, waxaa muhiim ah in halkii daqiiqa ama labadii daqiiqaba ay ku xisaabnadaan micno kuula fadhiyaan. taas waa waxa lagaa doonayo. waxaan ula jeedaa ma jiro waqti kaaga wanaagsan, ma jiro waqti kaaga habboon haddeertaan inaad go-aan gaartid. tomorrow maya, next week maya, 33 sano kadib maya. right now, iminka wey. hadda baa lagaaga baahanya inaad go-aan gaartid si waqtigaaga 24 hourska ama inta yar aad soo jeedid aad ka faa'iideysatid. haddaad hadda dhibaatooto oo aad ruclayso oo aad juhdi bixiso oo aad orodo oo aad hamiga iyo himilada iyo riyooyinka aad leedahay aad ku dadaashid, marka dambe aad weynaatid baad ogaa doontaa wixii kaaga soo baxay oo miro ayaad gura doontaa. laakiinse haddaad hadda seexatid, hurudid, maalayacni ku baxdid, ogow markii aad meel gaartid ayaad dareemi doontaa waqtigii kaa baxay micnaha uu lahaa. It's time inaad decision gaartid ay tahay hadda wey. right now. isla iminka. hadda waa da' yar tahay. nacam, yes. laakiinse xilli waxaa imaan doontaa da'daada aysan waxba aad ku qabsan. waa inaad ka faa'iideysataa timekaada. hadda aad sida the best utilization waa inaad sameysaa wey. aad ka faa'iideysataa timeka aad haysatid. aan isdhegeysano. waqtigu waa iska sayf oo kale. haddii aadan goynin baa lagu yihahdaa adigu buu ku goynaya. macnaheedu muxuu yahay? markaad weynaatid baad ogaa doontaa. hadda haddaad ka faa'iideysatid waqtigaada markaasna ogaa doontaa faa'iidada uu leeyahay. mid ogaaw, guusha iskama timaado ee waxay ku imaadaa
effort ay ku imaadaa, juhdi bay ku imaadaa, dadaal bay ku imaadaa, adkaysi ay u imaadaa, dhibaatooyin fara badan loo adkaystay ku imaadaa. waxa daaqada ka soo galaya ma ahan, wax hal habeen ku dhalanaya ma ahan. maxay u baahan tahay? Success comes from effort, hard work, dedication. intaasoo dhan waxa ku imaadaa guush bay ku imaadaa. hard work inaad dhididaa wey, inaad habeen soo jeedaa wey, waa inaad juhdi gelisaa wey. wax walbo aad doonaysa inaad guul ka gaartidna waxay u baahan yihiin juhdi, dadaal ay u baahan yihiin, sabar ay u baahan yihiin, ya dulqaad bay u baahan yihiin, time ay u baahan yihiin, waqti bay u baahan yihiin. Success comes from effort, hard work, dedication, persistence. maxay macna kuula fadhiyaa waqtiga? muxuu waqtiga macna kuugu fadhiyaa? waa inaad ka faa'iidaysataa waqtiga. hadda aad daawanaysa videogan, waqtigaaga wanaagsan oo aad go-aan gaaraysa ma jiro. ma doonaysaa waqtiga inta kuu haara inuu ku dhammaado adigoo waxba aad qabsanin, adigoo wax macnaha iskugu fadhin, adigoo haddii lagu weydiiyo 3 saac kusoo dhaaftay maxaa qabatay lagu dhaho aadan sheegi karin? miyaysan ceeb kugu ahayn? ceeb wey. waqtiga marka waa inaan laga faa'iidaystaa. maanta weeye go-aanka xilligaa qaadanaysid oo 2 tallaabo ama 1 tallaabo aad u qaadaysid si aad u gaartid waxa aad doonaysid. is today the time. waqtiga wey maanta aad loo baahan yahay, la doonayo ay tahay inaad go-aan qaadatid. go-aankaas aad u qaadanaysid inaad gaartid shayada aad doonaysid inaad xaqiijisid himiladooda. this is your dream. waa riyadaada. riyadaada si ay u dhumowdana waxay u baahan tahay time. waqtiga waad haysataa, laakiin maxay u baahan tahay? it's you, adiga ay u baahan tahay inaad ka faa'iidaysato waqtigaada. waqtiga waa inaad ka faa'iidaysataa. ha yaraada ha kuu badnaado, waad dhimanaysaa. laakiinse waxaa loo baahan yahay himilada iyo riyooyinka aad doonaysa inaad gaartid mustaqbalka in hadda aad ka guul gaartid. time ayaana kaaga saacida inaad ka faa'iidaysato. markii aad noqotid qofka aad doonaysa inaad noqotid, dhagayso, markaad noqotid qofka aad doonaysid inaad noqotid mustaqbalka, maxaa lagaaga baahan yahay? mana jiro qof kaa hor istaagi kara wadadaada, ama adiga iyo riyooyinka aad doonaysid inaad noqotid qof nii dhexeeya ma jiro. keliya timekaaga aad ka faa'iidaysatid waa halkaas ku tagi kartaa. waa waxa ku hagaaya waa waqtigaada. hadduu waqtigaada ku hagaagsan yahay, cidi kaama soo dhexgeli karto waqtigaada. that's it. marka laga reebo isla adiga oo iska hortaagan gaarista himilooyinka iyo riyooyinka uu leeyahay, waa isla adiga qofka ishaaya ee isku dhegan ee isku diidaya in uu gaaro meesha uu doonaya inuu gaaro. waa isla adiga oo is-ilowsiinaya, ismahmahinaya inuu gaaro meesha uu doonayo inuu gaaro. waa isla adiga is-xasdaya, waa isla adiga is-dhastiga iyo busta isku haya. waa isla adiga oo doonaya inuusan gaarin meesha uu doonayo inuu gaaro. taas micnaheedu waxay tahay waqtigaad haysat ayaa dayacday. haddaa waqtigaa haysad aad dayacday, macnaheedu waxay ka dhigan tahay inaad dayacday gebi ahaanba riyooyinkii, himilooyinkii iyo rajooyinka aad ka lahayd in the future inaad gaartid mustaqbalkaad inaad gaartid. waa isla adiga doonaya inuu gaaro meel heblaayo, haddana aanan u ordaynin, haddana aanan u ruclaynaynin, haddana aanan u diyaarsanayn inuu gaaro meesha uu doonayo inuu gaaro. ma jiro wax lagaa doonayo oo special requirement ma jiraan. weliba limitation ma jiro. xad ku xadidaya adiga ma jiro oo ku dhahaya meeshaan haddii aad gaartid times ma sii soco kartid. limitation ma jiro. xad aan soo gabagabayno, waa adiga qofka meesha fadhiya, adaana go-aansada inaad bartaas fadhiisatid. qof walbaa meesha u taagan yahay
ha dheeraato ha gabadh dhexal ahaato asiga ayaa go-aansaday inuu meeshaas ahaado. taas isku diidannahay maya. si marka ay u noqoto meel dheer rajadaada waa inaad timekaada ka faa'iidaysataa. meeshaas aad tahay oo aad joogtidna adaa doortay. it's okay to be there. marka halkaas inaad ahaatid okay adaa doortay. ha u xanaaqin dadka kale, ha eedeen deegaanka, ha eedeen familkaaga, ha eedeen waxyaalaha adig ku hareershayeen, ha eedeen qadarta alle. qofka go-aansaday meeshaas inuu taagnaado oo fixed ku ahaado, still ku ahaado oo taagnaado, qofka go-aankaas gaaray waa adiga. it's you, not familkaaga ma ahan, deegaanka ma ahan, adiga ayaa qastiga fadhiisa go-aansatay. si marka aad meeshaas ugu kacdid waxaad u baahan tahay timeka in sida wanaagsan waqtiga aad ugu faa'iidaysatid. haddii aad doonaysid isbedel waad samayn kartaa. haddaad adigu isbedeshidna waxa kale aad doonaysana waa isbedelayna. oo maxaa dhacay? saarabtay noqonayaan. famisa saarabta ayay kuu noqonaya. macnaha decisionkaada ayaa wax walba kuu go-aaminaya. decision inaad gaartid waxaa u baahan tahay timekaada inaad ka faa'iidaysatid. qorsho yeelo, go-aan gaar, kadibna horay u soco. horay u soco oo madaxaada kor u qaad. bimacnaa hawada sare waa inaad fiirisaa oo himmo la celiyaa yeelata, horumar aad samaysaa. it's okay meeshaada aad fadhiisatid. it's okay waa adaa doortasan, adaa ku qanacsan. laakiin haddaad isbeddel samaysid waxaana way isbeddelayaan. that's it. fiiribal sida aan u nasiib badannahay inaan noolaano xilligan hadda la taagan yahay. waayo waxaynu haysanaa wax walba oo inoo fududayn karaa si aan u gaarno himilooyinka iyo riyooyinka annagoo aan leenahay. taasoo aysan helin dadkii annaga naga horeeyay quruno ka hor ama historyyaal ka hor naga horeeyay annaga. bal fiiri fursadda aan haysanno iyo sida aan u dayacnay. tiknolojiyadda maanta horumarka iyo tadawurka ay samaynayso iyo dadka qaar say ugu harsan yihiin waxay ku tusinaysaa in caalamka lagu kala duway dadkii horkaalka ka jiraba. horumarkaada iyo guusha aad doonaysidna waqtiga ayaa in laga faa'iidaysto ay mudan tahay. ikhwaani waxaan isku daqaarnaynaa oo aan ku dadaalaynaa in waqtiga aan ka wada faa'iidaysano. waqtigu aad iyo aad ayuu muhiim u yahay. qof walbaana waa inuu ka faa'iidaystaa. waayo waa lagula xisaabtamayaa. hadda adan is xisaabinna kulli waa lagu xisaabin. is xisaabi oo waqtigaada ugu yaraan un meel wanaagsan ugu faa'iidayso. ku darmeynaa insha allah. intaas kusoo gabagabeynaa dhiirigelinteena yarta. waa inaan ka wada faa'iidaysanaa. mawduucyo kale iyo barnaamijyo kalena waan soo wadnaa insha allah. kanaalka hadduu marka ugu horeysa yahay fadlan kanaalkaas subscribe saar, share na asxaabta kale la sii wadaag, commentina noogu soo bixi, like na saar. waa walaalkiina maxamed cabdirasaaq oo niileh waqtigaan ka wada faa'iidaysano. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.